xafladan ayaa ahayd mid lagu taageerayay isla markaana lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi waxaana lagu qabtay galbeedka magaalada tan London. xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK isla markaana waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska. dadkii xafladaasi ka hadlay ayaa iyagu sheegay in ay taageerayaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii ay isugu xirmi lahaayeen jaaliyada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan iyo gobolka Banaadir. waxaan u hambaleynayaa walaalkayga Taabud iyo howsha wanaagsan uu ku hayo magaalada Muqdisho. reer UK ayagoo isku xiran oo meel kasta ka yimid waxay ku ballan qaadeen in ay caawa gogoshan ay tahay inaan ka tashano ballanti aan hore u qaadnay oo wax qabadka ah. halka waxaan isugu nimeen ku soo dhaweyno duqa magaalada xamar Taabid insha Allah wuxuu noqon doonaa ilaahay idinki lagu baraaro oo magaalada hantabaadno ilaahay uga baryeynaa. xafladan waa soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudana Taabid Cabdi Maxamed oo runtii dad fara badan oo dad aad u fara badan oo reer UK caawa halkan isugu yimaadeen wixii wax qabad oo u qaban karnana waa u qabanaynaa. aragtidii laga arkay Muqdisho ayay Soomaaliya ayaa laga arkaya marka waa inaynu garab siinaa maamulka cusub hadii Ilaahay ka dhigo. anigu waxaan ku darayaa intaas مسؤول وين ويا مقالة مقدشو قفك ما أنت لو ديبي وأنا هول علوس مقالة مقدشو وهويو ومقالة ذي قف كستأو حول بيلها أو سو أذجري قف كستأو حول بيلها ماشو سوق سنجري ومدح ومد الصومالية وانا ماشى هدي أي دكتور وطن كوردني دقي وحكستي ودنك وحكستو بايا دانك بدن هاي داويلا وتاجنا نقول هدانا رير مقدشو حاربنا إن نقول أصلا نقول نقرب جوك عن هاي مركب وحرجينا إن أصلا لابنو بولكاني وهجاجي ونحسن وقروح بدن إن شاء الله. هل كان عاو حنسقون نمد هم بليدا هذا تاجر هذا يو قرب استاج هدو إلهي إدمه وحاربنا إن أنكو عاونو إن أنكو قرب استاجنو. أحلى أبو سلام وياه intii isku soo dabarinday isku soo hagaajisay xafladan quruxda badan aynu ku dhiiri gelinayno maayarka iyo duqa magaalada caasimadda Soomaaliyeed. horta runtii waxaynu marka hore inoo ka baahan yahay duco ilaahay mahadiis waaye in gabdhihii Soomaaliyeed ee meel walba ka yimi ee ku wada nool caasimadda Muqdisho ee ku dhashay ee Soomaaliyeed ee mid walba ayadoo maamul goboleed walba ka soo jeeda haddana xuduntoodu ay ku duugan tahay Muqdisho inay caawiyo yimaadeen caawa farxadda aan isugu imanna waxay tahay xafladan waa xafladii labaad oo ahayd in aan guddigii aan ku ansixinayna ama aan uga tabaabushaysanaynay hadalladii gudoomiyahayna qaaliga ah Taabid Cabdi Maxamed oo ahaa in jaaliyadda ka soo jeeda UK in ay garabkiisa istaagaan. maaha markii ugu horeysay ee xaflad tan oo kale ah loogu qabto gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi wadankan Ingiriiska isla markaana qaybaha kala duwan ee jaaliyadaha Soomaaliyeed ay halkaasi bogaadin iyo hambaliyo ugu jeedinayeen. Yuusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada London.